bilowgii bishii Juun gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa howlgalo lagula dagaalamaya al-shabaab ka bilaabay deegaano hoosaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Ujeedada ugu weyn ee gudoomiyaha howlgaladaasi uu kala ahaa waxay ahayd sidoo uu furi lahaa magaalooyinka Beledweyne Matabaan oo ay fariisimay ka sameeyeen al-shabaab. sidoo kale canshuur ay kaga qaadi jireen gawaarida isticmaasho wadada xiriiraysa gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya. dagaalada culus oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada dawladda ayaana ka dhacay deegaano hoosaga degmada Matabaan. dagaaladaas ayaana ku seefideen inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan. xildhibaanada kale Maxamed Cabduqaadir Maxamed iyo Maxamed Cabdullaahi Buraale oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa markana ku soo biiray howlgalada ka bilowday duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. xildhibaanada ayaana diyaarad helicopter waxay ku tageen deegaanka heesalkaas oo laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab. waxay deegaankaasi ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah xoogag hubeysan ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya. intay socdeen howlgalada al-shabaab ayaa 3 Sebtembar ee sanadkan deegaanka Afriirdood oo u dhaxeeya degmooyinka Beledweyne iyo Maxaas waxay ku dileen dad shacab ah oo tiradooda lagu sheegay 22 qofood oo ay ku jireen caruur. waxaana ay gubeen gawaari gaaraysay ilaa 8 kuwaas oo wada raashin iyo agab kale waxaana ay ku wajahnaayeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. carab xoogan ayaana ka dhalatay dadkii al-shabaab ay ku dileen deegaanka Afriirdood. howlgalka uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya waxaa ku biiray dadka deegaanka oo ka carooday falkii al-shabaab ay ku kaceen iyo xasuuqii ka dhacay deegaanka Afriirdood. xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanka ay ku beereen dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab. shacabka horta u jeedin oo nabadoonadoodii maanta ay ku soo biireen shacabkina wada qoryaha hore u wateen waxaa la rabaa marka dhammaan maanta fursadda la haysto in la beerdaraynin maanta dawladeennii iyo shacabkeennii iyo saraakiisheennii iyo dhammaan gacmays haystaan warkama badinaayo waxaan rabnaa in howlgalkan bilowday gobolka ka bilowday dhammaan Soomaaliya inuu gaaro hormuud baan u noqon. dagaalada u dhaxeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa sii xoogeysay oo al-shabaab ay miinooyin ay ku xireen ceelal ay dadka deegaanka ay biyo ka cabiyeen sidoo kalena ay gubeen guryo fara badan. nabadoon cilmi Maxamed Barre oo kamid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan waxa uu hormuud u yahay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo kamid ah gobolka waxaana uu ka hadlayaa dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira deegaanka. sida aad la socotiinba waxa gobolka Hiiraan ka socday kacdoon ka dhan ah nimanka argagixisada ah ee al-shabaab. waxaan ahay nabadoon kamid ah nabadoonada reer Hiiraan. waxa ka kacay waxa lagu sameeyay reer Hiiraan oo lala wada socdo in lagu soo duulay naftoodii iyo maalkoodii iyo diintoodiiba in lagu soo wada duulay in la gubay guryahoodii ceelashoodii in la gowracay oo la bireeyay oo maaragtay ilmahoodii birmageydadii odayaashii culimadii ciyaalkii in la gubay baabuurtii iyo maaragtay raashinkii kala duwanaa ee u saarnaa maaragtay nafta laga dhiganayay in la dhacay xoolihii ay ku noolaayeen maadaama intaas oo dhan ay dhacday meel maaragtay mas'uulna aan dadka aan ka nahay waxa kacay kacdoon ka dhan ah argagixisada al-shabaab. al-shabaab ayaa inta badan laga soo saaray degmooyinka Beledweyne Maxaas iyo Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. howlgaladii socday lagula dagaalamay al-shabaab ayaana u jiheysay deegaano dhanka koonfureed ka xiga magaalada Beledweyne waxaana al-shabaab laga saaray ilaa dhowr deegaan. magacaygu Cabdullaahi Maxamed Faarax ku magac dheer Bicir ahna taliyaha ciidanka awsleyda jiinka hoose ilaa laamiga ilaa dhagaxa hadda waxaan joognaa waxaan shaqada ka soo bilownay xujuub ilaa meesha la yiraahdo Baardheero beer xaano wabigana waxaan maartaa aan shaqada ka bilownay meesha la yiraahdo ilaa hela boole camalow meesha la yiraahdo hela bacaad aagaas ayaa maartaa ciidamada ay ku sugan yihiin waxba meel ciidankaas oo ah macawisley nakaashanaya ciidamada dawladda. wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaana ka bilowday deegaano hoosaga degmada Bulaburde iyadoo dagaalada u dhaxeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka iyo kuwa dawladda isku dhinaca ay al-shabaab ay kula dagaalameen deegaanka iyo Sooman. gulufka ka dhanka al-shabaab waxa uu hogaaminayay xildhibaan Maarig Cabdulla oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. dadka meeshaan idin socdana waa dadkiinii adika oo idinka dhashay oo beledkan wax ka lahay ciidankana u jeedin waa ciidan deegaanka iyo ciidankii xoogga dalka oo isla socda waa dadkiinii
adinkaydii imaadeen awoowayaashiin halkaanay deganaayeen aabbayaashiin halkaanay deganaayeen dad muslimoo la yaqaanaa leeyahay annahay waa islayna annaga iyo adig aboorey inay noqoto degmooyinka dalkan mid la mid oo baasaboor laga qaadan karo oo dhakhtar leh gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayto Cusmaan ayaa safar dhinaca dhulka waxa uu kaga ambabaxay magaalada Beledweyne waxaana uu ku gaaray degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan waxaana uu noqonayaa gudoomiyihii ugu horeeyay safar dhinaca dhulka ku tagay degmadaasi tan iyo markii al-shabaab laga qabsaday sanadkii 2014 gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cusmaan ayaa dib ugu soo laabtay 2 bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maalintii ku xigtay 3 bishan magaalada Beledweyne waxaa ka dhacay ilaa 3 qarax oo waaweyn kuwaas oo lagu soo raray gawaari kala duwan waxaana ku dhintay ugu yaraan 30 qofood oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 70 kale qaraxyadan ayaana sidoo kale waxa ay geysteen burbur hantiyadeed Cabdisalaan Cumar oo ka mid ah ganacsatada uu saameeyay qaraxan ayaana waxa uu ka hadlayaa baaxadda khasaaraha ganacsiga oo jeeda waa burbure dhowr dukaan ku taalay bacdaha ragga meeshan dhaha 22 dukaan ku taalay hadda waxa dukaan ahaan oo badbaadane hal xitaa lama dhihi karo boqolkiiba 95 waa burburaan hadda meesha taalay alxamdulillah nafaa ka nabad qabnaa laakiin maalkii meesha yaalay iyo dukaamadii iyo hantidii waa burbureen laakiin ma sheegi karno khasaare inta la eg tahay dukaanka ugu yar oo la dhihi karo hantiya taalay waxa taalay marka ugu yaraatay $6,000 marka waana dareemi kartaa dukaanada dadkan waa kala jab waaweyn marka dukaanada qaarkood waxa ku gubtay 20,000 qaar 30,000 qaar 15,000 marka alxamdulillah haddaan fahan u nabad qabno maal wala helaa dhib male alxamdulillah madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa tacsi u diray helada dadka ku dhintay qaraxyadan waxaana uu sidoo kale uu murugada u la qaybsaday ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS gaar ahaan kuwa Djibouti guud ahaan inta ku shahiiday dadkii qiimiga badnaay oo isugu jiray mas'uuliyiin kala duwan waxaan leeyahay ilaahay jannada ha idinka waraabiyo waa shahiideen idinkoo dalkiina iyo dadkiina difaacaya dhimateen ilaahay idin naxariistaan leeyahay gaar ahaan walaalaha Djibouti ciidamada hiil walaal dadkii ka dhintay iyagana waxaan leeyahay ilaahay ha idin naxariisto dadkii dhaawacmana Allah idin caafiyo naftiina iyo maalkiina aad u hurteen xildhibaan Sharmaarka Xasan Gani oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabelle ayaa qaraxyada ka dhacay magaalada Beledweyne waxa uu sheegay in aysan jirin cid lagu la xisaabtamay sidoo kale mas'uuliyadooda ay gabeen taliyaasha booliiska ee nabad sugidda magaalada Beledweyne suurtagal maaha in maalin walba magaalada la qarxiyo dad lagu dilo cid loo soo xiray ama loo soo maxkamadeeyay aysan jirin tuunkan aan wadada la taaganahay laakiin talaabo aanan u qaadin hadii falkan dhacay cid loo soo qabanayo aanay jirin taliyaasha booliska ka militariga dhamaantood ha is casilaan waayo waa u jeedaan shacabka shalay taageersan ama wadooyinka caadi lagu marla maanta magaaladu waa firaaqo sababta ay firaaqada u tahan waa noocaas kala ma jecla askari wala xildhibaan wala shacab qofkii ay ku soo aado ayuu problemkaasi qabsanaya waa ka tiiraayeensannahay intii gaartay intii kaleeto muxuu ahaa wax ka qabadahna dadweynaha iyo dawladda federaalka iyo dawladda Hirshabelle madaxweynuhu ka tacsiyeeyay tacsi kaliya inuu ka ekaado ma aha gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayto Cusmaan oo booqday goobaha ay qaraxyadu ay ka dhaceen ayaa dalbaday in la xisaabtamo taliyaasha booliiska ee nabad sugidda gobolka Hiiraan kadib markii ay gabeen mas'uuliyadda wixii ka dhacay magaalada Beledweyne waxaan codsanayaa oo carabka ku adkeynaya falkii meeshaan ka dhacay cid baarta aniga ka mas'uuliyadan ka gobolahan waxaan cadeynayaa in ay leeyihiin lagla jansada dhacday labada sarkaal carabka ku dhuftay waa qaybta booliiska iyo qaybta nabad sugidda waxaan dawladda ka codsanayaa hay'adaha ku shaqale xeer ilaalinta qaranka CID cid kiiska meeshaan ka dhacay baarta in la soo diro madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa sheegay in maamulkiisa uusan waxba ka qaban karin dhibaatada ka dhacday magaalada waxaana uu dawladda dhexe uu ka dalbaday in wax laga qabto dhibaatada ka dhacday magaalada runtii meesha dhibaatada ka dhacday waxaan dhihi karnaa waa dhibaato qaran waa dhibka weyn heer state waxaan dhihi karnaa dhibaatada meesha taallo waa in qaran ahaan loogu soo gurmado cid kasta ee gacan ka geysan kartana ay gacan ka geysato
dego madake danti mahele niman dunya lain medego madake danti mahele daliyo darhuma moyi daima dalai didi daliyo darhuma moyi daima dalai didi daliyo darhuma moyi daima dalai didi